السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالin dhaweyd waxaan akhrinayay kitaabka dhanbaalada quraanka waxaan ku imaaday aayada quraanka ah waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura waan u hormarinay waxa ay qabteen waxaan ka yeelnay busla afuufay qoraal wuxuu soo waraa marka kitaab kamid ah kitaabada ibn qayyim al-jawzi baa waxa uu yiri Saciid bin Qadri hadal uu yiri ku soo minguuli Saciid wuxuu leeyahay Allah naxariiste wuxuu leeyahay aakhira waxa imaan doona qof wanaag soo sameeyay kitaabkiisa la sii doona qofkaas wanaag soo sameeyay markaas kitaabkiisa markuu kala furo wuxuu doona aniga kitaabka ma leeyahay ilaahayo aniga marka adduunka aan joogay wanaag fara badan aan soo sameeyay ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay waxna ma lumiyo waxna ma iloobo laakiin wanaagida aad soo sameyn jirtay waxa la tagay dadkii aad xamatay subhanallah maanta waxa qiyaasa amal walba ama wax walba oo soontay ama sadaqa baxsatay ama xaj aadagtay wax walba oo dar ilaahay aad u qabatid aakhir marka aad tagtay aweeyda ka war oo waliba aad ku weyd sabab adi ah sameysay aad ku weyd waxa la yiri hadda kor waxa jira nin wanaagsana ma garanaa inuu ahaa Saciid bin Qadri iyo in kale ma garanaayo waxa la yiri ninkaas hadii la dhaho qof baa ku xantay uu bixi jiray Allah wuxuu aaday magaalada wax magaalada markaas ugu qaalisan qudaarta markaas ugu qaalisan uu soo gadi jiray qudaar iyo wax badan wax adi hadiyad fiican buu soo xiri jiray markaas qofku u geen jiray markaas leeyahay oo maxaa wuxuu leeyahay qofkan wuxuu aakhir isiyay waxa markaas dadka aan la isiin macna qofka ani xanto akoonkayga aakhir wax igu riday marka waa abaal marinaya waxaan ku abaal marinaya maadaama asaga uu ii gartay in uu aakhiro oo wax la isiinaynin uu isii ana adduunkan ku abaal marinayo hadiida siinaya wadii jilka war nabi sallallahu alayhi wasallam muawiya markuu dirdaray wuxuu ku dhahay muawiya carabka ka adko carabka waa waxa ugu badan waxa la qofka naarta galiya ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu naga madoobeeyo xanta Soomaalidu waxay tiraahdaa xoolaha waxay daaqaan cawska dadkan waxay daaqaan xanta waxaan rajaynayaa in mahmaahdaas iyo dhaqankeedaba aan ka saari doono dhaqamadeena iyo nolosheenaba si aakhira aan u ceertoonta aakhiro wax walba ka war amaanta qabanaysa hadaa ku ceertoon ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in aniga iyo idinkaba uu naga madoobeeyo xanta qof walbana oo anagina xantana iska cafino waxaan rajaynayaa khayr badan jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum assalamu alaykum